waxaynu gudbaynaa halka iyo baydhabo oo intaad xamar ku soo noqotay adadaba baydhabo u sii dhaaftay waan dhowahay caliyow waa maasan tahay mar walba on xamar ku soo noqonayo horta yara dhib bay ahayd airportka soo gelistiisii iyo waa yara dhib weeyaan xamar laba jeer buu ay ku baadhaya ay baa laba jeer ku baadhaya haye marka xogaa ayga horta waan yar dhibsaday haye laakiin haddana waan ku faraxsanaa oo amniga aad iyo aad buu sugahayay sax magaalada muqdisho airportkeeduna sidii aan u malaynahay ma ah haye standard ahaan wuu ka hooseeyaa haye qoladan favori ee airportka gacanta ku haya ee lagu wareejiyey mayse u hagar bixin gartay marka airportku dayac fara badan baa ka muuqda oo xagga shirkadda ka yimid oo xagga shirkadda ka yimid sax oo airportada maaragtay wadamada deriska marka loo eego maadaama shirkad turkisha ay gacanta ku hayso inuu ka fiican yahay bay ahayd siduu hadda yahay oo meelaha laga baxaya xataa diyaaradda magaceeda lagu soo qori lahaa xataa male shaashadihii iyo wixii way iska jajaban yihiin oo iska waxaysan yihiin shirkaddu maxay qabataa marka haddayna garoonka gudihiisa adeega dadka haddayna u dhammaystiraynin safraya adeegii la rabay ma aha sidii loogu talagalay meesha maaragtay bahladan qaada boorsooyinka ee diyaaradaha geeya xataa soo gawaadhi yaryar oo erboodada gaar u ah soo ma jirin cagaf baaba jiidaysaba boorsooyinkii cagaftii beerahaynu ku qodan jirray yaaba jiidaysaba alaabtii oo ka dhex shaqaynaysa meesha dhexdeedii iyada qudheed waa foolxumo waa soo xasuustay hadda markii bum baa soo socda adigu tiri baan soo xasuustay naga xanaajinaniyo hadda shirkadda faafoori markaa maa dhaweytana waxaan arkahaya iyadoo wiil ka reebtay diyaaraddii uu raaci lahaa maya waxa weeyaan musqulahana waa kii ra-iisul wasaaruhu ku haystay khayrlaha siiya waa dhaweyto waa kii ra-iisul wasaaruhu musqulaha ku haystay musqulihii horta waa la hagaajiyey waan galay si aan uga soo warbixiyo haye musqulo nadiif ah oo waxaysan oo nadaamsan oo maaragtay wax walba u dhammaystiran yihiin baa laga dhigay laakiin shaashadihii maaragtay dadka kala sheegahayay diyaaradaha meesha la kala raacay ma jiraan way iska jajaban yihiin waa dadkii inay basas sugayaan baad moodaa xogaa ma nadaamsana meeshu intaas waxaa kuu dheer diyaaraduhu way raagaan caliyow diyaaraduhu way raagaan oo diyaarad baa waqtigii ay kici lahayd 2 saacadood 3 saacadood kadib kici local ah xagga localka oo Soomaaliya gudaheeda ah sax marka waxa laga yaabaa adoo diyaaradaadii oo beledweyne u socotay u yimid oo waqtigii la taagan yahay in lagu dhaho Kismaayo aado way soo laabanaysaa alaab bay sii qaaday ama madax bay sii qaaday oo Kismaayo ka soo noqonaysaa iska sii fadhi waxa laga yaabaa adoo diyaaradaadii oo beledweyne u socotay u yimid oo waqtigii la taagan yahay in lagu dhaho Kismaayo aado way soo laabanaysaa alaab bay sii qaaday ama madax bay sii qaaday oo Kismaayo ka soo noqonaysaa iska sii fadhi armiyaad waalantiin shirkadaha qaladka iskala marka diyaaradaha la shirkada tacbaan oo hay aan la xisaabinaynin qolada airportku waxay inay shirkadaha la xisaabtaan waa inay isku xiran yihiin qolada airportka kowdhe hay'adda duulista rayidka ee Soomaaliya waxaas oo dhan waa inay isla xisaabtamaan wasaaradda duulista gaadiidka cirka oo iyaduna de waxaas oo dhan mas'uul ka sii ah ma jirto marka dhowr dhaliilood baan hayaa mid waxa weeye airportka dhexdiisa cagafyo inay dhex socdaan ma aha cagafta beeraheeda u dira gawaadhidii loogu talagalay ee airportka ka shaqaynayay alaabtii iyo boorsooyinkii qaadahayay keena waa qodobka labaad diyaaraddu waa inay waqtigeeda ku baxdo oo aysan maaragtay iska soo daahin ama meel iska aadin ama adoo xilligii aad raaci lahayd aan lagu dhihin magaalo kale caws u sii qaadee sug intay soo noqonayso way dhacday dhageyso dad bay ku dhacday caws bay sii qaaday baa lagu yiri meel calafka xoolaha meel geysay ma fahantay ama waxa lagu dhihi madaxweyne maamul goboleed baa meel gaaday oo si kadisay u qaaday anagu maxaan nahay lacag baan laga qaaday waa khalad jira weeyaan in kasta oo maamul goboleedada qudhoodu ay kala nidaam adag yihiin oo sida maamul goboleedada diyaaradahoodu ay tacbaan u yihiin aysan kuwa kale u ahayn maamul goboleedkaasi iyo awoodiisa nidaam iyo si uu adag yahay ay ku xidhan tahay taasina way jirtaa waxaa kale oo jira diyaarado standardkoodu uusan buuxinaynin inuu dadka qaado oo tacbaan iska ah oo dadka qaadahaya oo qaar baa annaga oo hawada ku jira yaa waxaa iska goosanaya maaragtay IC
dadka qaboojinayay Soomaaliyana hadda xilligan aad bay u kululay aysigii baa iska fadhiisanayaba markaasaanu isla wada dhididnay oo isla kululaanay oo ka yaabay in neeftu nagu dhigto idinkoo cirka maraya anagoo cirka marayna marka diyaaradaha standardkooda in la ilaaliyo qoladan waan kala hadlay hawadii dowladda waan kala hadlay war halkaa iyada aan naga saxa baan ku idhi marka waxay dhaheen diyaarado badan baanu shaqada hawada ka saarnay xoogaa baan nagu hadhay bay dhaheen xoogaagiina halgan baan kula jirnaa iyo dadaal baan wadnaa laakiin weli arrinku ma fadhiyo waqtigana waa in la saxo oo qofku waxaa laga yaabaa caliow diyaaraddu meel ay u soconaysay saacad ama saacad iyo badh yaa waxaa laga yaabaa 5 saacadood inay kaagaga baxdo airportkii iyo joogjoogitaankiisi marka horena qolyahan diyaaradaha qudhoodu waxay tigidhada jaraan tigidho kuwii diyaaraddu waxay qaadaysay ka badan edeb darrada meesha ka jirtaan kuu sheegaya qaado 100 qof 150 qof baa la iska jaran oo konton kale xagga la saaraya kul soo dhawaatay dhacaya waxa lagu leeyahay xilligeedii xilli ka horeysa 3 saacadood ka hor imaw baa lagu leeyahay markaas inta u horeysa intay waxaystaan bay inta kala dhigi way idinka soo buuxsantay bari ama bari dambe baxa waxa bari ama bari dambe aad sheegayso diyaaradu waqti bay lahayd maxaa buuxsan ka keenay waqtigeedina waan ku imide may xilligii aan ugu talagalay in la sii waxeeyo yaa buuxsantay marka xagaana qaa'inimo iyo dar baa ka jirta qolada tigidhada waxaas oo dhan qolada maartay airportku inay iska saxaan baa loo baahan yahay airportku waa airport weyn oo caalami ah oo waliba magaca madaxweyne hore oo aabihii dimuqraadiyadda Soomaalida ah ku suntan aadan Cabdulla Cismaan naxariis janna Allah ka waraabiye marka waxaas oo dhani waa arrimo dhaliil oo jira weeyaan inta marka laga soo tago waxaad arkaysaa diyaarad aad moodaysa inay dhul raf ah ku socoto hawada nafteedaan u baqay war maxaa doobigaaga kaa soo kixiyay qabatay waxaa laga yaabaa inay hawadu xun tahay marka iyada war hawada ma xumayne fasjiidadka dhulka kale ay buuro kor marayso war garan mayne hadda beledweyne oo kale markaan u soconnay mar baanu rafaadnay neeftuna qabato war ma nin sakhraana na wada bas alay wada qoslay diyaaradda dhexdeeda yaa nin sakhraana na wada waa maxmeeshu kulaha buuray kor maraysaa buura weligeennaan kor mari jiray iyo badbe anaga waxaa noogu sheekaynay Norway ka buura badan weligeena wax ruux ma yasii ciirti baa la arag baasha laga hagaajiyo ku yidhi waxay ku leeyihiin waxa laga yaabaa inuu kabtanku inuu bireegi lugta la waayaa laga yaabaa way ku leeyihiin way salteenis niman Afrikaana oo Kenyaan u badan baana bahalada wada kuwaan badnayn bay Soomaali wadaan Soomaali garan Kenyaanka aad uga shaqeysta meesha iyo Wandis iyo wax daran marka bahalada naga hagaajiye neefta baan ugu dhigi gaadhay qaarkood Muqdisho mar aan ku soo laabanay walahi in leeyahay ciyaarayaan mooday oo aan xagan ka imid meeshan ka imid talo ka yahay karanba maayay safaradii way igu batay in aadina loogu ciyaarayo markii aan soo degnay baan kabtankii diyaaradda fiiriyo waa nin Kenyaan oo iska faraxsan oo iska ciyaarayaaba anaguna mar baan nafta ka samray baan siriir meeshan maxaa ku keenay saad dhimanaysa ma jigjigeeda aad ku dhimatid marka inahaasi waa airportka intaana ka bixin baan sheegayaa sax way waxaan jecelahay inay iska hagaajiyaan waliba runaantii qaranka Soomaaliyeed shirkadda Fafori ee ku haysa airportkii dhanaaye qaranka gacanta ku haysa waa inay si adag ula xisaabtamaan runaantii wax isasiinta iyo wada shaqayntu way kala duwan tahay Turki Soomaaliya abaal badan buu galay uu ku mahadsan yahay laakiin shirkaddan goonida ee ka shaqaysanaysa wadanka waa si fiican loola xisaabtamo diyaaradahana waa in la kontroolaa hawadii dowladda insha Allah aan kugu daray waliba airportka qudhiisa iyo meelaha laga soo galayay iyo meelo burbur oo digada oo qaab dari ah baa jirta oo aysan ahaateen inay saa ahaato isagoo ra'iisul wasaaruhu uu tagayo baalkii saxankii wareejinay boorsooyinka uu istaagay la leeyahay oo leeyahay dadka hagaajisa marka waka marka waxa weeye waxyaabo badan oo sidii shirkad Turki oo casri oo magaalooyinkoodaba way qorxiyaan halkii islaantii tiri ninka fedha weyn gabadheeda kama dhali waayeen hakrasha ku jirtadii oo kale way marka shirkadda waxa laga yaabaa inay hakrasha ku jirto magaalada sida Istanbul iyo Ankara aad u qurxisaan nooga qurxiyo magaalada
haddii kale airportka nooga qurxiya waanu xanaaqnee magaalaanu garanaynaa naga qurxiya oo naga hagaajiyo oo halala xisaabtamo oo heshiiska qudhiiso haddii dee shirkadu ay ka soo bixi weydo waa inuu jiro dee meelo xeerar iyo meelo looga bixi karo dhalinyarta miidiyaha joogta waddankana waxaan ugu baaqaynaa inta ay siyaasad kaliya ku mashquulsan yihiin shirkadaha waddanka ka shaqaysanaya waa inay la xisaabtamaan si xor ah oo banaanka ah intay soo qaataan muuqaalada waxyaalaha khaldan ay sameeyeen muuqaala laga soo duubo si ay xukuumaddu u ogaato iyo dadka xafiisyada ay heshiiska la leedahay si ay u gaadho cabashadu waa in meelaha xun ay samaynayaan iyo wixii ka khaldan waa in lasoo bandhigo oo bulshada loo soo bandhigo oo lagu qiimeeyo bulshadu ku qiimaysa insha allah hadduu la yidhahdo inta meelo xun laga fikirayo qabiil iyo reer iyo waa in waxyaalaha bulshada danta u ah laga hadlo la yidhahdo waxaan innaga inama qabato shirkadaasi ama heshiiska lagala noqdo ama waxaan hagaajiso أنا هذا مقدشة من نعبي لكن ده وحيابها يكون أنت وأنا شيء كرو وصح وي ما فهمتي هو حاجاتين مداس وكذا حاجاتين بالليل هذا مدة كلا مالها لقى سوق جلي أمني أيدو دتك قول هذا كباران أيدو سيرو فضد بالله بارع دتك ومركا قاركو حلقة يا باين لقوله والجوهر مريني أدو إسكسعو تاقول هذا وين لا لدق علمه وين هالكاسي لا أتكيوي أمني أنا كما كفتمو ليش نشوجه بقى سومال هدان شوجه هدان مقدشة شوجه تشيك هدان شوجه amniga anuu kama kaftamo marka meelahaas oo kale dadka jooga waa in mushaar fiican oo ka badan oo dadka meesha maraya aysan hunguriyeenin la siiyo oo la adkeeyo wey halka far baan ku godaya arinta insha Allah way xoojin doonaan kulay warkeenu waa gaari doonaa xukuumadda arinta inay sameeyaan oo ku dadaalina insha Allah ta'ala sii soco hadhawow waa sii soconaya waxaan go'aan ku gaadhay inta wixii ka dambeeyay inaan aado baydhabo markaan aadahayay iyo markaan garowe aadayay kala garan maayo mid ay ahayd gaarigii i qaadi lahaaba maalin baaqday xagee gaarigii airportka i geyn lahaa inta badan gaari khaas ay qaadi jiro asxaabtaydu leedahay marka gaarigii baan dhowr jeer yaan maalinkii waayay waan baaqday haddana maalin kale waxaan u baaqday wasiir aan kula kulmi lahaa muqdisho oo aan jeclayn inaan magaciisa sheego uu ii jaray wasiirkaasi intuu i ballamiyey buu ii jaray taleefkiina waa iga qaban waayey maadaama 2 maalin baydhabo ka daahay xilligii aan aadi lahaa waxaan go'aansaday inaan ayar shib magaciisa hadhow yaan wicinayn may hoos baan ugu sheegay wixii dhaliila waxaa laga yaabaa inay arrimo ku yimaadeen laakiin iga raalli waan mashquule inuu soo dhahaa fiicneed marka waxaan go'aan ku gaadhay baydhabo maadaama 2 jeer iyo dib uga dhacay inaanan mar dambe dhihin waa idin soo socdaa anoo dhex mushaaxayo in la arko halow baydhabo markaan garoonka kasii baxayay baan halow baydhabo u qoray waa iska tegey hal qofna isagoo oon maaragtay airportka ii joogin yaan ayar iska galay waxaan ka degay garoonka caalamiga ah ee shaati gaduud international airport ma maqashay shaar guduud ma shaati guduud baan ku yiri shaati guduud liyo muga ka cabno shaati guduud baa dhahaa airportkeeda waan gartay airportkaasaan ka degay airportka markaan ka degay sawir baan ku galay boardkiisii reer baydhabo markaasay ogaadeen inaan maaragtay airportka aan joogo magaalada inaan joogo isla markiiba waxaan sii raacay bas terminal cusub yaa ka socda magaalada baydhabo airportkeeda oo mar dhow aan u malaynaya in xadhigga laga jari doono casri ah laakiin ma gelin mana aana soo duubin terminaalkii hore ee qadiimiga ahaa yaan sii maray soona maray anigu